haye suxuur wanaagsan guys waqtiga suxuurta la joogo. Assalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada maanta waxaan karsanoonaa digir iyo qamadi for suxuur maasha Allah dad waxay dhihi doonaan islaantan abateedkeeda abinkiya cuni kara digir wallahi maasha Allah hadaa cuntid hadii horta laabjeex aad qabin oo waxyaalahaas aad qabin maasha Allah is very nice hadaa digirtan iyo isku darsatid iyo qamadiga it's very healthy also and it's very maxaa dhahay rabadaankii maasha Allah gaajo kuma qabanasan ku dhaadii gaajo salaamu calaykum isdhoosin maasha Allah marka gaajada u fiican tahay maadaama qamadida is very strong cabaar dhan wallahi maasha Allah aniga horta soo baraaweeya I really liked it habeenkii hadii qof weyn kale ama qof laabjeex kale ama waxyaalaha qabo ama cuntada habeenkii dhibto kale I'm not advising you guys to eat it but hadii qof caafimaad qaba aad tahay maasha Allah and you can do it try it insha Allah marka labadooda la isku kariyaa sometimes you can digirta hormari kartaa wax yar like 5 minutes sometimes waa isku kariyaa aniga because sometimes I think inay qamadida ka hor karto so waxaan pressure cooker-kayga iska gelinayaa oo hilibka ku karsado is easier also waddankaas gelisa haddii ofanka dabka stove ku karisidne wax yar ka bacdi waa soo dhaqay marka maasha Allah marka dhaqdid si fiican iskaga dhaqdid digirta u badan qamadida marka digirta iyo qamadida hoos maraysa digirta hadhow soo kor maraysa waa aragtay marka digirta la karina digirta kor marta so ayada waxaa laga yaabaa inay lila bed ay si fiican ay u karin especially markaan gelinaya kan oo kale so again aan ku daaraa haddii kan oo kale ay haysatid maxaa dhahay pressure cooker-ka marka hore oo karto isku walaaq cusbada ku dar and then hadhowti asaga dana ku dar like another minute 10 minutes or 15 minutes more ku sii dar then it will be easy while I'm cooking afurka hadda iska karinaya waan in la share gareynaya marka kan iyo haddii aan isla cabno iyo smoothie-geeni waxna in la share gareynaya at the end of the video insha Allah so ila daawada marka hadda waa dhaqay waxaan gelinaa cooker-ka digirta way ku taala also for this one so meesha digirta la u geenaysaa markaad daartid so let me show you guys waa xireynaa first and then waa daaraysa hadda off waaye you gonna turn it on then digirta u geynaysaa beans meeshaas ay ku taalo dhac faraha ka qaada isaga iskarinaayo alxamdulillah dabkii maanta dhan oo korka la kor taagnaanaayay taking a break haddana waa kana ayadoo kartay maasha Allah marka wax yar u manaysa inay u dhiman tahay again aan kusii huurna waxaan u geynayaa warm aan u geynayaa hadhowti saasa looga leexanayaa haddana ayadii oo waa kana oo ready marka caanaan ku darsadaa you can use your saliidaadii sokortaada if you want to but aniga suxuurtayda maanta suxuurta in la share gareynaa this is my suxuur habeenkii marka soo kacdo wallahi qamadida especially is very nice waxaa waaye healthy waaye and then smoothie-gaana iska cabaa sometimes if I don't have time ina smoothie-gayga aniga aan karsado amina aan shiito raali ahaada Soomaaligayga and then vitamin-tigayga iska cunaa haddii allergy aan qabaa so allergy season-kana lagu jiraa and then I take my allergy medicine-kayga iska qaataa maadaama haddii kala dhu markaa soomanta allergy kugu kacahe meel loo raaca mala marka markaan suxuurana insha Allah it's nice ina vitamin-tigaada qaadatid vitamin B 12 kan qaataa is very helpful wallahi xooga adoo waxa arkaysa maanta dhan rabadaankii oo jikadiina hagaajiyay marka intaan aan cuntid vitamin-tigaadana aan cuntid also haddii vitamin D waxa kugu yar yihiin marka vitamin D-ga iyo iron-ka wixii kugu yar hadda kii iron-ka xataa iga maqan yahay aniga very low iron marka waa iskaga darsadaa I so take a lot of stuff so midka vitamin-tiga caadiga oo daily vitamin iyo kano B12 ka give me energy maasha Allah waxyaalo badan oo u fiican yahay and then my allergy-gayga oo maadaama hadda aan soomanahay banaankii season-kii inuu isbedelayo spring-kii la galooyo allergy-ga xabadan sii qaataa maadaama aan soomanayo ilaa caawa ka hor aan la afurin marka suxuurtayda in la share gareynayaa for the day insha Allah daawasho wacan make sure you guys subscribe you know Soomaalida dadka inaan hore u wadiin waaye very slow ayaa ku tihiin subscribing and sharing videos marka insha Allah make sure you share the video and you subscribe waxyaalo la kala faa'iideysta jiro qof wax aqoon ka faa'iideysanaya isna because waxa la isdheeriyahay bas faa'iideysiga wax adiga ka maqnaa walaalka ku jira dhahay marka kala faa'iideysanayna biyaha caboona biyaha cadka iska sii cabaya ay drink biyo cadna habeenkii sii badsatid waa maasha Allah kaniinigana waa ku sii laqaaya marka especially habeenkii waxaan shiitaa smoothie-gayga hadaan ka gaarin kaasaan cabaya because time hadaan u helin maalintaas oo kale inaan smoothie-ga isku shiido waa in la soo share gareynaa insha Allah hadda korna waan itusa video meesha yaalo oo
vitaminka keyga allergigana waa kana Panadolka isku culaa ama ku kaleeto mid kasta markaas available juice-ka isku daadiyo raal ahaada iska tirtirooya meesha bokoska ma iga daat marka insha Allah saas aan ka dhiganaynaa vitamintigaada iyo allergy hadaa qabtid medicine-kaada waxaad hore u sii habeenkii madax xanuun hadaa madax xanuun badan tahay one take it two Tylenol iska sii laq just barbeer alxamdulillah soo rabadaankaada shaydaanka ku waswaasino madaxa ku xanuuna iyo inta laga qabtay inta oo rabadaanka waswaas u sakaa geliyano ay barbeer waxyaalaha dhan iska sii diyaarsan dhac everything is ready marka smoothie-gaygi waxaan shiitaa smoothie-gayga caadiga oo celery spinach iyo waxaas iyo fruit kale isku daraaya hadda koor in la share gareeyay check out another video ay jiro insha Allah oo maxaa dhahaye smoothie-ga recipeskiisa iyo waxa dhan soo fiiriyo is very healthy asagana marka hadaan ka gaarin this one is very healthy also biyahan حبض اسكا سو قبسا ايانكو green ايانكو fruit mostly green kan jecelahay but yesterday I want to try this fruit strawberry iyo waxyaalaha la isku dadalila bedanaan waayo iyadana hadii aan ma arkino gas ay qabto kala ma ku fiicno ilmahayga also awake wala afuro yaraa la ahaada xag kamerada mid urdu soo ujeedin marka insha Allah enjoy the video markii hadhowti quraanka la akhristo markaan hadda ani 4:30 iska kaca salaada waa 5 but 4 iska kaca 4:30 kula 4 kaca and then before 4:30 I finish eating kabacdi waa iska weysaysta salaada isku sii diyaarinaya ma sha Allah magana wadu kabacdina xoogaa quraana akhrisanona because inta u dhaxayso salaada iyo time-ka maadaaba oo inta hurdada ku noqoleed salaada intaan sugaayay I read little bit of Quran ilaahay ha noo aqbalo أجر يا حسنان أنا قصي because ما كلا تيم لما هاي مرك أنت يرتو تيم كفائدته السلام عليكم